السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحاب قيمة قاية قدرت أنت بيجي مثلا اسكو صلاة ودونا سن ميل والبو أجرتان عافمات عملنا عبادة سبنا يعني إذا رجينا هل كان تقول سعتان وبرت عن كلنا براه بالشدة هي لو إسباق لو وصلاة لو هذول صلاة هي وإذا كانوا درستان أيوة إذا ولا شلوا كلام مقنن شغلة زائد هاد بس ما أنت هو جانس ير عن سكوه لنا جانس كثير نوع حلو بهيا إن أنا كفائدة سنة إن بدل واحد إذا عصتين إن إذا هركانوا خفت وهذا الشيء جعل إن دم له ليلى iyo walaasheeda Fildaan qof kale ma aha waa qof nagu qaaliya waa qof nagu caana walaasheena qaaliga ah Amaal Xasan Caato Amaal bartaan aan leeyahay waxaad ku leedahay asxaab fara badan oo aad ku taageera mar walba waxay dhahan gabadha Leila iyo Fildaan u hadasha nookeen balse maanta adigoo shaqo ku jira ayaa shaqada ka soo kaxay si aan muuqaalkaaga u tuso run ahaan waad ku mahadsantahay maadaama waqtigaaga aad qayb naga siisay waxaan ku dhiilaa horta ku soo dhawo asxaabta salaam waan dhawahay asxaabi waa salaamantihiin meel walba aad joogtaan inta maqalkayga iyo muuqaalkayga taqaanaa waxaa idin leeyahay soo dhawaada waxaan kaloo idin leeyahay salaamu calaykum waxaa idin leeyahay waan ku faraxsanahay maadaama aad isoo dalbateen taageernimadiinana aad baan ugu qanacsanahay waxaa idin leeyahay low isbaag ha la soo booqdo ha lagu soo yaacay dadka dhihi jireen anigu waxaa idin leeyahay ha lagu soo cararo like share committee yaan loo kala harin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمال حسن عاطو واتاس كل عكاس مر بدن دقينا بيكسر عن برسمات مقال عن حتى وهايسان إن أمال حسن عاطو وحي كلو عن كهاد مسلسل حياة يمرات وحي وهندسي حياة هاي ذي كلمة بدن أذكر حاجري معناها أذكر كوميدي إكسو قريان حبليه هو ناكر لها كمالك أمالي هذا كان سمعناه حلقة سموكية وها هالقبسي إيه طبعا مركا أنا حناقو كله ناكردي يناكردها نقوم يريسانين عشان هانتي ما شاء الله أنا بقول حسنت هاي ما دام وقتك أتقن نجسي أماني وحرمنا وراسي إنك قادنا وراسي قسم كورونا هانتي وعندي على إن عندك أصول بهنا قرمت ديارو تاي إن وراسي قاعد شلة يقولوا إن شاء الله بإذن الله ونجانس كعليها ونجعلانها إننا كل صفرسته وراسينا أقصيه run ahaantii maanta waqtigu aan ciriirino waa sababtoo ah ammaan shaqo oo tal aniga laftirkeyga shaqo ay tahay balse maadaama community-dan ay u bataan waxaan jeclaystay inaan muuqaalkeeda maanta xoogaa aad ka aragtaan inta dhimanna wareysiga ayaad ku arki doontaan inta barnaamijkan mid lamid ah kulmi doona amaali maxaa leedahay waxaan leeyahay is aragti dambe oo xiiso leh